daawadaha sharafta leh maxaa ka hortaagan isbedel inaad noloshaada ku samayso waxaan dhammaanteen ka simannahay inaan rabno nolosha inaan meel sare ka gaarno in noloshayna isbedesho inaynu horumar sare gaarno hase yeeshee bal ka waran haddii maanta aniga iyo adiga isla qirno isbedel la'aanta noloshaada haysataaba adiga sabab u tahay bal ka waran haddii adiga caqabad ku tahay noloshaada nolosha waxaa dhacda xaalado fara badan in dadka walwal cabsi walaac fara badan ay dareemaan waxaad ogaataa xaalad kasta way sahlan tahay adduunyada inay isbedesho laakiin isbedelkaas waa in uu adiga ka yimaadaa marka hore magacaygu waa Jaabir Cusmaan JB halkan waa madasha dhalinta Soomaaliyeed ku soo dhawow xigmaso nagu soo bir subscribe dhoo YouTube-keena mahadsanid halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 6 qodob cajiib ah naftaada isbedel weyn kaga sameyn karto haddii aad samayso nala sii joog ilaa dhamaadka si aad wax un kaga faa'iido muuqaalkan ku soo dhawow mowduuceena maanta daawade aadanuhu way ku adag tahay in uu toosnaado waxaana sabab u ah 4 cadow oo quraanka noo sheegay oo kala ah naftaada adduunyada shaydaanka iyo hawadeena 4taas cadow waa inaan ka digtoonaanaa kana adkaanaa waxa kaliya kaga adkaan karno 4taas cadow waa in aan Allah ku xirnaano Allah xarigiisa aan haysano mar walba Allah ku xirnaano aan tala saarano Allahna aan weydiisano wadada toosan daawade 6dan qodob muhiimka ah ee aan soo wado ku dadaal mar walba inaad samayso qodobkeena koowaad xiriirka adiga iyo Allah subhanahu wa ta'ala idinka dhaxeeyo inaad hagaajiso ma is aragtaa marar fara badan in danahaaga aad seegto shay walba shayga uu ka liitana micno dara ah naftaada xoog iyo farxad in ay ku samaynayso iyadoo u degdegayso ma is aragtaa naftaada hoos ugu naqo salaadihii ma hagaajisaa waqtigooda ma ku tukataa qaala Allahu ta'ala inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala ma badalo qoom illa ay nafsadooda ka badalaan mar walbo waxaa hagaagsan oo wanaagsan inaad naqato qof awaab ah Allah u naqdo aduu qalad ka dhaco bini'aadina tahay inaad Allah u toobad keento mar walba Allah tala saarato wax walba way hagaagi doonaan haddii aad Allah ku xiran tahay qodobka labaad samayso hadaf jadwal dhab ah inaad leedahay hadaf xaqiijintiisu ku caddahay waxay ka caawinaysaa in aadan isdhiibin weligaa daawada samayso jadwal taariikhaysan tusaale 15 November ilaa sanadka cusub laga gaaro waxaan doonayaa inaan xirfad cusub ama luqad cusub ku barto daawada mar walba hadafkaaga waqtiyeyso joogtayso waxaa kuu fududaanayso inaad naftaada hogaamiso daawada nafta way ku adag tahay inay toosnaato habka ugu fudud la tijaabiyey ayaa ah inaad ciqaabto naftaada haddii aan kuu jilciyo hadalka tusaale jadwalka inta uu ku socdo nafta hadii ay ka adkaato maalin caajis ugu baaqato hawshii laga rabay ciqaab uga dhig nafta halkaas maalin ay baajisay 3 maalin dib inaad kaga darto jadwalkaaga waad la qabsan doontaa xeerkan hadii aad ku dhaqanto qodobkeena saddexaad caadooyinkaaga xunxun ku bedel caadooyin wanaagsan samayso caadooyin fiican ka dhigayso qof ka adag naftiisa caadooyinka fiican waxa ka mid ah in aad bilaawdo wax akhris maalinle ah ugu yaraan 10 page maalin walba akhri haddii aad ahayd qof dhafar badan habeenkii xilli dambe seexdo jar caadadaas ku bedel inaad goor hore seexato si aad aroor hore u soo toosto muhiimadda ayaa ah in caadooyinka wanaagsan ku gaar ah aad samaysato noloshaada inaad isbedel dhab ku samayso ma ahan in sanadkii hore sida uu kugu dhamaaday uu kana kugu dhamaado haddii aad ahayd qof waqtigiisa maalayacni ku dhameeya ugu yaraan waa inaad isku bedeshaa qof noloshiisa wax ka bedelayo qodobka afaraad waa in uu jiraa xanuun iyo dhibaato kaasoo kaga bixi kartid isbedelka daawade haddii aad isbedeli weydo oo tiraahdo sida aan ahay hadda ayaan ahaanayaa weligay xanuunka ka soo gaaraya intee ayuu la eg yahay daawada waxaa la isku waafaqsan yahay culmaa nafsiga waxay yiraahdaan qofka bini'aadanka isma bedelo ilaa uu xanuun ka dareemo marka xanuun dareento ayaa noloshaada isbedelaysaa tusaale balwada wax walba oo balwad joogta aad ka dhigatay marka ogaato in noloshaada burburinayso oo dhibtiisu badan tahay caafimaadkaaga dhaqaalahaaga waqtigaaga dhaqankaaga intaba uu halis ku yahay xanuunkiisa markaas sax u dareento kana waantoodo markaas ayuu isbedel imaadaa qodobka shanaad wixii tagay ee ku soo dhaafay ha u laaban kaliya qaladkaaga wax ka baro daawade hadaad ku fakirto mar walba waxa soo dhaaftay dhaqaaqi maysid hadaba hore u soco gadaal ha soo dayin qaladkaaga mar walba macalin ha ku noqdo daawade fashalka shalay waa miraha maanta waana midka ay waajibka tahay in laga abuuro dadaal iyo feejignaan si ay noogu suurta gasho wax badan ka beerida guulaha beri daawade waxa ka sii faa'iido badan in qaladaadka dadka wax ka barato 10 fara badan ka qaadato
qodobka ugu dambeeya qodobka lixaad naftaada mashquul ku naqo naftaada haddaad ku mashquusho guul ayaad gaaraysaa bini'aadamka haddaad ku mashquusho dembi iyo cadaawad waxaa ahayn kama dheefaysid daawade 24 saacaad haysato ha ku lumin wakhtigaaga tiktok yacni qiila waqaala qabiil iyo qabyaalad inaad subax ilaa habeen tiktok waardiyo ka naqato dantaada seegto hiblaayo iyo hibil u kala hiiliso horumar kuma gaaraysid naftaada ixtiraam wakhtigaaga ha ku lumin hana ku dayicin yacni ugu dambayn dadkayga ku xihan xikmadso waxaan idiin siinayaa talo yar si walbo aad mashquul u naqato noloshaada ha ka haajirin qur'aanka 3 maalin wax ka badan wakhti waad u helaysaa maalin walba isku day inaad ugu yaraan hal bog ilaa hal maqro inaad akhriso joogtayso qur'aanka mar walba hoggaan ka dhigo waxaad ku helaysaa qur'aanka kariimka deganaan insha Allah haddii aad halkan nala soo gaartay aad iyo aad u mahadsan tahay muuqaalkan haddaad ka heshay like saar share dhe asxaabtaada la wadaag intaa muuqaalkan lacina ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar